إلهي إلهه dib u heshiisiin lagu maamuli doono la isugu keeni doono dadka walaalaha ee reer Koonfur galbeed cid kasta oo reer Koonfur galbeed oo wax tabanaysana gobol baan u fidinay waana bilownay waana soo dhaweynaa insha Allah dib u heshiisiintaas waxaan kaloo si gooni ah noogu joogo madaxdaanadii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan ka codsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu maadaama constituency iyo deegaanka uu ka soo jeeday uu yahay inuu nagala qayb qaato oo u haro munaasabadan dib u heshiisiinta iyo gogoshan aan fidinay asagana oo nala dhameeyaan ka codsanaynaa insha Allah asaga iyo cid allaale cid reer Koonfur galbeed oo madaxa oo inta joogto mas'uuliyiinta arrimaha cadaaladda waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga loo sinaado waxaan doonayaa inuu maamulka noqdo mid u adeego shacabka ee aan adeegin si taas loo helo maamulka waxa uu qaadi doonaa tallaabooyin muuqdo oo dib loogu soo celinayo kalsoonida shacabka maamulka wuxuu astaan u noqon doonaa siyaasad cad oo dib u heshiisiineed oo dhaxmarto beelaha ku dhaqan Koonfur galbeed taasoo horseedi doonto kalsooni iyo isamaanid waxaan halkaan uga tacsiinayaa intaysan doorashada dhicin doorashadii Koonfur